waxaa farxad ah in maanta cayaarta halkan aan qabanayno ay tahay cayaaro ka duwan cayaarihii hore. dhalinyaro runtii arag la haddana u soo istaagay inay horumarka isboortiga dalka ka qayb qaataan oo runtii dadka baahiyaha gaarka qaba aan tusayno, awoodsiinayno, dhiirigelinayno, bulshadana aan ku wacyigelinayno muhiimadda ay leedahay dadka baahiyaha gaarka qabo inaan garab istaagno. waxaan rabaa inaan fursaddan ugu mahadceliyo Astaan TV oo mar walba diyaar u ah horumarka isboortiga iyo dhiirigelinta dhalinyarada. sidoo kale waxaan si gaara maanta rabaa inaan ugu mahadceliyo maamulka iskuulka Al-Nuur oo runtii barbaariya, waxbara, haga, toosiya dhalinyarada aragga la ee Soomaaliyeed. haddii iskuulkan uusan jiri lahayn dhalinyaro fara badan fursaddaas kama faa'iidaysateen. annaga maamulka gobolka Banaadir haddii aan nahayna waxaa naga go'an inaan taageerno dadka baahiyaha gaarka qaba, dadka u istaagay inay dadka baahiyaha gaarka qaba awoodsiiyaan ama taageeraan. annagana maamulkii gobolka haddaan nahay waxaa naga go'an inaan dadkaas garab galno. intaas ka sokow waxaan rabnaa waqti aan ugu socdo muhiimadda isboortiga iyo dhalinyarada halkan kuma soo koobi karno. waxaan u taagannahayna waxay tahay horumarinta dhalinyarada isboortiga. barnaamijkaana barnaamij gaara bacdamaa uu yahay. waxaan rabnaa in bulshada Soomaaliyeed ay aragto muhiimadda dadka baahiyaha gaarka qaba ee noo leedahay. annaga maamulka gobolkana waxaan furnay xafiis gaara oo dadkaas baahiyaha gaarka qaba oo runtii agaasimana ka ah Basiira oo gabar iyadana aragga la ah, runtiina u taagan inay dadka baahiyaha gaarka qaba maalin walba dhiirigeliso. sidoo kale waxaan shaqaalaha ka mid ah dad ayagana baahiyaha gaarka qaba. waxaan rabnaa dhammaan bulshada, ganacsatada iyo warbaahintaba in loo istaago dadkaas baahiyaha gaarka qaba, la dhiirigeliyo si ay bulshada uga mid noqdaan. waddan walbana horumarkiisu wuxuu ku xiran yahay hadba sida dadka baahiyaha gaarka qaba ee waddankaas ay bulshadaas iyadaa u qadariso, u tixgeliso, una dhiirigeliso. sidaas daraaddeed waxaan leenahay cayaarihii waa noo furan yihiin.